Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya in dagaalo xooggan oo u dhexeeya ciidamada militariga Kenya iyo dagaalyahano ka tirsan xarakada shabaab saacadihii lasoo dhaafay oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Dagaal muddo saacadaha qaatay isla markaana u dhexeeyay dagaalyahanada xarakada shabaab iyo ciidamada Kenya ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaal muddo saacadaha qaatay isla markaana u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo xarakada shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee ku dagaalantay deegaanka qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose. Deegaanka qoqaani oo hoos yimaada degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku hardamay saacadihii lasoo dhaafay dagaalamayaasha xarakada shabaab iyo ciidamada militariga Kenya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Dagaalamayaal aad u badan isla markaana ka tirsan xarakada shabaab ayaa laba jiho ka weeraray saldhig militari ay lahaayeen ciidamada Kenya oo ku yaala deegaanka qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka markii dambe oo ku fiday deegaano ku dhow deegaanka qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo saldhigyo militari ay ku leeyihiin ciidamada militariga Kenya ay ku sugan gobolka Jubbada Hoose. Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen hukunka madaafiic culus oo isweydaarsanayeen labada dhinac ee ku hardamaysa deegaanka qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose. Baraha taageera xarakada shabaab ayaa waxa ay ku sheegeen in weerar lixaad leh ay ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanka qoqaani, halkaasina ay ku dileen askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya. Wararka qaar ayaa sheegaya in 5 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya lagu dilay weerarka, tiro kalena lagu dhaawacay, waxaana hadalkaasi sheegtay dagaalamayaal ka tirsan xarakada shabaab. Weli wax warar kama aysan soo bixin ciidamada Kenya oo ku aadan dagaalka saacadihii lasoo dhaafay ayaga ay kula galeen halkaasi dagaalamayaasha xarakada shabaab, waxaana weli aysan ka hadlin sidoo kale ciidamada AMISOM oo taliska AMISOM oo ka warbixiyay dagaalkii saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Kenya iyo shabaab oo ku dhex maray gobolka Jubbada Hoose. Dagaalkani ayaa daba jooga kadib markii maalmo kadib weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ay lahayd dowladda Kenya, kaasoo ku sii jeeday degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya, isla markaana ay jidka u galeen dagaalamayaal ka tirsan xarakada shabaab. Xarakada shabaab ayaa gaarigaasi dadkii saarnaa u kala qaybiyay dadka muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahayn, balow markii dambe shabaabku ay dileen 11 ruux oo aan ahayn dadka muslimiinta. Dowladda Kenya ayaa weerarkaasi war ka soo saarta, waxaana ay sheegtay 11 ruux ee ku geeriyootay 6 ka mid ah ay ahaayeen ciidamada booliska dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa weerarkaasi kadib sheegtay in amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Kenya ay amrayso in ciidamada booliska xilliyada fasaxa ay ku jiraan in ay qaadan karaan hubkooda si ay isaga difaacaan weerarada xilliyada qaarkood dhici kara in ay ku soo qaadaan dagaalamayaasha xarakada shabaab.